madaxweyne farintani waa codsi ay dirayaan suxufiyiinta Soomaaliland taasi oo kugu socota adiga madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad xurriyadiisa u soo celiso oo xabsigaad ka sii dayso Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ah wariye samafala hawlihii uu qabtayna dad badan oo dan yar ah ugu gargaaray oo wax qabadkaasi maanta uu yahay mid muuqda wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon xariga wariyahaas waxaan u arkaa mid aan sax ahayn waxaanu hadda noqonayaa wariyihii ugu muddada dheeraa ee intaa xidhnaada Soomaaliland madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku codsanaynaa in uu wariyahaas samafalaha ahaa oo wax weyn qabtay muddadii uu shaqaynayay inaad madaxweyne cafiso oo aad sii dayso mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad xorriyadiisii u dib u helo oo aad sii dayso samafalihii weynaa suxufiga caanka ahaa mudane Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahaa nin dhalinyar ah oo dadka wax badan taray dadka dhibaatada haysato iyo dadka magaranaysa ee duruufaha kala duwan haystaan wax badan tari jiray oo ay bulshadu maanta aad u tabaysan mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa mar labaad annagoon ku hiifahayn kuna haaraamahayn laakiin hadalkaygana codsi uu yahay inaad xorriyadiisii u soo celiso صحفي Cabdimaalik Muuse Coldoon Cabdimaalik Muuse Coldoon waa xubin saxaafadda kamid ah waxa hadda uu xiran yahay muddo sanada dad badan ayaa ku tiirsanaa adeegyadii caawimada ahaa ee uu sameyn jiray oo dad badan ay filayeen iyagana inuu soo gaari doono oo kaalmadaasi uu u fidin doono dadkaas oo ah dad nugul oo filashadaasi in badan qabay inay maalin ka qayb qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa anagoo ah bahda saxaafadda inuu ku tixgeliyo oo uu ku cafiyo maadaama isagu yahay madaxa ugu sareeya ee ummadan hogaamiya Cabdimaalik Muuse Coldoon waxa uu ahaa nin samafala ah ee dad badan bay noloshoodu isaga ku tiirsanayd waxa uu qabtay wax badan oo aanay dadkeenu xataa hadii ay isu tagaan aanay qabanin waxa uu noloshooda bedelay dad badan oo noloshoodu ay aad markii hore u hooseysay balse haatan noloshoodu ay meel fiican marayso Cabdimaalik inaad cafido mudane madaxweyne waxa ku ogolaanaya xeerka lambar 352 qodobkiisa 16aad oo ku ogolaanaya in aad maxaabiista cafidid mudane madaxweyne waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanaynaa ninkaasi samafalaha oo dad badan noloshoodu ay ku tiirsanayd inaad cafido mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad xorriyadiisa u soo celisid samafale Cabdimaalik Coldoon oo muddo sanada imaka xidhan madaxweynahana waxaan mar labaad u soo jeedinaynaa in samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon uu cafiyo isla markaana xorriyadiisii dib u helo mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa samafalku sameeyay Cabdimaalik inaad ku cafiso oo xorriyadiisa u soo celiso anagoo warbaahintiya madaxweyne Coldoon waxa u baahan cid kasta oo baahan Coldoon wuxuu ahaa samafale ubadka iyo hooyada iyo dad kasta oo jilicsan caawiya madaxweyne codsigaygu wuxuu daaran yahay bisha Ramadaan darteed dadka agoonta ahaa iyo waaweynka ay u quudin jiray Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa u baahan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad Coldoon xorriyadiisa u soo celiso mudane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maaha markii koobaad aan ka codsanay in la cafiyo samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon laakiin waa markii afraad ama waa markii shanaad ee saxaafaddu ay kula hadashay madaxweyne markana waxaan ka codsanaynaa ninkaas samafalaha ah ee bulshada Soomaaliland u shaqaynayay ee qarnimada Soomaaliland ka shaqaynayay ee annaga naga shaqada badnaa inaad cafidid mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dadana baahda warbaahinta inaad soo dayso xorriyadiisa u soo celiso Cabdimaalik Muuse Coldoon wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon qaabkii markii hore loo soo xidhay iyo qaabka loo xukumay bagariyaqaanadu waxay sheegeen in aanay sharci ahayn markii hore haddana muddo dheer ayuu xidhan yahay wuxuu ahaa samafale bulshada Soomaalida si weyn ugu gargaaray gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ka dalbanaynaa ama ka codsanaynaa in uu cafis u fidiyo samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon marka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markale waxaan leenahay madaxweyne maadaama aad Soomaaliland oo ah dimuqraadi aad madaxweyne u tahay xariga saxafiyiintuna uu yahay marka dalalka dimuqraadiga la eego wax aan u wanaagsanayn waxaan ku leenahay madaxweyne oo codsigayaga uu u dhacaya intaas oo suxufi oo reer Soomaaliland wax ka codsanayaan inaad sii dayso wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon madaxweyne Cabdimaalik waxa uu door muuqda ka qaatay ismanaantana kor u soo qaaday qayb lixaad leh oo warbaahinta badankood aan ka mid ka ahay ay dayaceen oo aan karo uu kaafiyay waa daryeelida ka warhaynta dadka jilicsan ee u baahan in la garab istaago waqtiyada adag madaxweyne
waxaanu kaa codsanaynaa in badanna aan kugu soo celcelinay aanu sii wadaynaa inaad xorriyaddiisii u soo celiso cabdimaalig muuse coldoon madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inuu bannaanka yimaado sidii howlihiisii gaarkaa reerkiisa caruurtiisa iyo weliba faamiligiisa inta kale iyo dadkaa ku tiirsanaa iyo howl maalmeedkiisii kaleba si uu markaasi u qabsado waa naga codsi madaxweyne mahadsanid madaxweyne biixi markaad ahayd gudoomiyaha kulmiye 4 sano ka hor ka dambeysay waxaad ahayd nacab xadhiga iyo dadka la xiro waxaan kaa codsanayaa bilaa caleeg madaxweyne muuse biixi inaad sii daysid cabdimaalig si noloshiisa caadiga ahayd iyo tii masaakiinta uu shacabka ku qabto waxuu madaxweynuhu dhawaan cafis u fidiyey maxaabiis kor u dhaafta 500 ma garan karno sababta uu madaxweynuhu uga reebay amba ay cidii ku shaqada lahayd ee xeerlaalintu ka mid tahay ay uga reebtay cabdimaalig haddii ay taasi dhacday madaxweynuhu awood uu u leeyahay waxaan ka codsanaa mudane madaxweyne inaad cabdimaalig aad cafis u samayso codsigeena ma aha kii koowaad ma noqon doono kii ugu dambeeyay ilaa intuu cabdimaalig cafis leeyahay cabdimaalig sheekh muuse coldoon waxaan aaminsanahay inuu ahaa saxafigii ugu waxtarka badnaa uguna waxqabadka badnaa ee dalkiisa Soomaaliland iyo dadkiisa jilicsanba wax taray ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa laga yaabaaba dadkaas maatada ay caawin jiray inuu ugu naxariisto oo ku jannayo sidaa darteed qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa wanaagii tirada badnaa ee cabdimaalig dalkiisa iyo dadkiisa u taray in loogu naxariisto laguna cafiyo xorriyadiisana dib loogu soo celiyo madaxweynaha ka codsanaa inuu bal eego dhawaaqyada ka soo yeedhaya dadka jilicsan ee u gargaari jiray iyo sidoo kale warbaahinta intaasi ka codsanaysa in cafiska uu fidiyo cabdimaalig sheekh muuse coldoon waxa uu ahaa wariye samafal ah waxa uu wax taray bulsho badan waxa uu wax u qabtay bulsho badan madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa waxa uu taray ee bulshada ugu taray inaad darteed ku cafisid kuna sii daysid wariye samafal cabdimaalig muuse coldoon waa wariye wax badan taray dadka danyarta iyo inta baahan aan ku kalsoonahay in madaxweynaha Soomaaliland uu codsiga iyaga aqbali doono maadaama uu yahay madaxweyne si dimuqraadiya loo doortayna oo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka ilaalin doono oo ka codsanayna inuu markasta xorriyadda qowlka iyo dimuqraadiyaddaba ilaaliyo wariye cabdimaalig muuse coldoon mar kale waxaan leenahay madaxweyne codsiga iyaga aqbal oo xabsiga ka sii daamo oo ka qaata